waxa marar badan lagu celiyay marar badan waxa lagu celiyay وهذا كان حاليا ودنبيين ku jira garoonka Hargeysa waxaan ka biinayna magac la cigaal yaan ka masaxayna waxa la imika ka masaxa iminka gabalkii ugu dhicin warkayga markaa maqashaan shan goor beergal ugu yimid hadii lagu Cabdiraxmaan baa waxa ka saaray xaj Cabdiraxmaan ka saaray oo dadka biinta ka iibinayso xajigu nin sharfan buu ahaa shan goor buu idin yimid ku jira war ka baxa oo diidana tirmaya rag baan 10 u dhigayna حبط بان كاغا ساري حبط ninkayga labada gaari kala baxay labadood kala baxay 5 iyo 6 gaari baan haystay maalintii ku xigtay yaan isku dilayna qoyta hadan ciise muusanahay rag nagu kala dhintay aanu lahayn waxa laga daga waxaanu ku duuleeyay rag lahayn waxaanu ku duuleeyay deegaamo kale oo inuu talaabayna ragna u lahayn ka jooji wala arkay inaan lahaa mana yarbay ahaa ma filaya man garanaynin taa inankii lahaa wajiga rasaasiga ga dhacday oo aqalkii fooqi ina macallin bay iga dhacday lahaa wan arkay taanu nin wajiga rasaasi kaga dhacdo wali nool garanba maayo deesadu u noolaanayo laakiin waxaan hubaa inaan macallin inaan birbira ku lahayn fooq horena ugu ma lahayn makana kuma leh halkan birbira markii la soo galay hadda tiraahdeen waxaan kale maqlay yarkaas iyagoo leh dhagaweyne uu nala socday horta dhagaweyne cid lama socdo isaga lala socdaa ciidanka halkan isaga watay birbira qabsaday ciidanka 300 oo nin baa infantry-geedu ahaa 300 ba ciise muuse Cabdulle ahaa dagaalkii dambe ahliga ahaa halkan ka dhacay dawladda Cabdiraxmaan qaar adigaaga soo meedhana ayaa kharibay oo Hargeysa laga fadhii waayay oo wadooyinka loo mari waayay oo tiihawdka loo mari waayay mujaahid ugaas garyaqaan Maxamuud Ducaale Salebaan Talaabo ayaa saaka si adag ugu jawaabay xildhibaan guun oo war aan saxnayn ka sheegay qabashadii magaalada Berbera 1991 markii ciidamada SNM ay ka saarayeen taliskii Siyaad Barre dhanka kalena ugaasku waxa uu sheegay in xildhibaanku uu been ka sheegay asalka taariikhda deegaanka saaxil mujaahid ugaas garyaqaan Maxamuud Ducaale Salebaan Talaabo ayaa sheegay in dawladii Cabdiraxmaan Tuur cidda shaashaysay ee qabaliga ka dhigtay ay ahaayeen kuwa la caqli ah xildhibaan guun maantana waxa uu doonayaa buuri isaga iyo kuwa la caqliga hayba in ay dawladda Cabdiraxmaan Ciro ay khadka ka saaraan kuna furaan dagaalo iyo waliba mushkilada kale hadaladii ugaas garyaqaan Maxamuud Ducaale Salebaan Talaabana waxa kamid ahaa sida tan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta doonayaa inaan ka hadlo hadal aan jeclayn runtii inaan ka hadlo hore aan jeclayn wax badan baan ka gabangaabsaday way geliyeen way ما جعلنا كهذا لكن وان كهذا يا ما أنتوا ده ونقطة نلا يراهدو حلي بنقول إن نقول لا يراهدو ده قرنا يو فميل كيسنا قرنا يو أبيه قرنا يو ولالكي قرنا يو لكن سجى أنا نقول لهين أيان إن دنيا هلك كلا هلا خضر حلا يبان أركي تي فيه كداوني سوى هلا يو وحبضن كهلا إن وكهلا waxyaabaha ka hadlay waxa kamid ahaa dagaalkii Berbera lagu qabsaday waxa kamid ahaa maxaan ku ilaahdaaye dagaalkii Sokeeye Berbera ka dhacay waxa kamid ahaa hadii Ilaahay ka dhigayo waxyaabo badan oo noocaas ayuu ka sheekeynay xalay toon arkay khadar waxa la khadarow taadeer maad de waxa tidhi anigu maan joogin waa la iga sheekay waa runtii maad joogin de kuguma baan arag laakiin meelahaasaan arkay adigoo de ka hadlo oo ayaan arkayay intii muddooyinkan dambe xalan waxa arkay adigoo inamo soo fadhiisay meelo ay leeyihiin waxaan ahayn ciidankii Koodbuur Hargeysa Berbera qabsaday wala arkay inaan lahaa mana yarbay ahaa ma filaya man garanaynin taa inankii lahaa wajiga rasaasiga ga dhacday oo aqalkii fooqi ina macallin bay iga dhacday lahaa wan arkay taanu nin wajiga rasaasi kaga dhacdo wali nool garanba maayo deesadu u noolaanayo laakiin waxaan hubaa inaan macallin inaan birbira ku lahayn fooq horena ugu ma lahayn makana kuma leh markaas intaasaan kulli kaga tagay isaga waxaan filayaa inaan wax jira deehayn halkan birbira markii la soo galay hadda tiraahdeen waxaan kale maqlay yarkaas iyagoo leh dhagaweyne uu nala socday horta dhagaweyne cid lama socdo isaga lala socdaa taariikhdu weligeed baan kaas u baahay ciidanka halkan isaga watay Berbera qabsaday
ciidanka 300 nin baa infantrygeedu ahay 300 ba ciise muuse muuse cabdalle ahay nin kale kuma jiro koodbuur baa qabsatay waati koodbuur kamid baa ciidanka meesha qabsaday ciidamadii qabsaday kamid ahayd tigniikadoodii bay ahayd waxa taliye ciidan oo ahaa ninka Xasan Ganay Cabdullaahi Xero iyo Cabdullaahi Fanax saddexan baa kala sirreeyay maalintii hore aan soo galeen duub baxnay nin baa naga dhintay laba nin baa naga dhintay baan filayaa Ali Cabdullaahi Raago saldhig agtiisa naga dhintay iyo Galayd oo koodbuur ciidan koodbuur ka tirsanaa reer balgobolaha oo ku aasnay halkan caanteynada si degdeg ah laba saddex intay meel yar faadfaadhay ku aastaan kaga tagnay dagaalkaas horta saas oo ahaa ciidamada soo galay iyo cid wadatay iyo kuwa kala ahaayeen saas ay ahayd anigu korida waan garanaya familkaaga reerkaad ka soo jeedana madaxdiisa halkan kana garanaya maxamed mooga garanaya sheekh Ismaaciil Geelqaad garanaya Daa'ud garanaya aadan waali garanaya aadan cali guhaad garanaya aadan waali ninkii loo oran jiray ragii kala maalinta la dhintay garanaya ragii ka dambeeyay garanaya shaqale laha garanaya ilma Yusuf Oday ilma Cabdi Oday intaba garanaya war qiimo badan bay ahayn adiga ku caayimay xasha lillah waxaan ku sheegaya hadaa tiri ciise muuse berbero waa loo qabto waa loogu dagaalamay adar anaga ciidan galo dagaalamay anigoo yar ayaan ka dagaalamay meesha lagu meersane oo ka dagaalamay meesha lagu dhahdo Tuurmidgaan oo ka dagaalamay buku dhabo intuu ogaadeen ciidan galay ahay in ciise musaana waan maalin qurana ma sheegan waa taariikh soo mar wax la wada leeyahay meel bicdun baa joogtay laakiin meel ciise muuse ka maqray berbera loo qabtay adeer ma jirto taariikhda khaldina dagaalkii dambe ahliga ahay halkan ka dhacay dawladda Cabdiraxmaan qaar adigaaga soo meedhana ayaa kharibay habar walba wax laga saaray habar walba riday iyo muuse biyaha riday iyo kana riday baa la yiraahdaa adigoo meedhan baa riday oo Hargeysa laga fadhii waay oo wadooyinka loo mari waay oo tihawdka loo mari waay halkan inta ay maadeen ciidanka leeyahay berberay qabsadeen dagaal baa ka dhacay oo dekadii waxba la diiday halkan iyada oo ay saddex nin oo qori wax maamul afar nin ka jiraan oo afartaba dawladii Cabdiraxmaan Soor magacawday oo saddex nin oo kamid ah laba ciidan gala tahay nin Axmed Ismaan ahaa nin kastam kaystay ahaa nin Cabdullaahi Raajic ahaa oo hawla maraakiibta haystay nin Arab ahaa Arab ahaayo haystay ninka Arab loo oran jiray haystay haama bari dhintay ahaan jiray afartan iyagoo jooga saddexdan jooga oo uu heliyo nin ciise muuse qolo dekada haysto Axmed Daahir Diiriye uu yahay oo afartaba maamulka Cabdiraxmaan soo magacaabay ayaa halkan weerar ka dhacay oo nala galay ciidankiina galay halkaas aan ku casuunay xirada gutada oo hilib ugu geyn oo qaad ugu geyn oo markay dhargan bay labadii darsaas lagu bilaabay qolka naga saaray laba gaadhan kala baxnay wax baabuur laba gaadhi oo qura ayaan kala baxnay shan goor baa ergal ugu yimid hadii lagu Cabdiraxmaan baa waxa ka saaray Xaj Cabdiraxmaan ka saaray oo dadka biyanta ka iibinayso xajigu nin sharfan buu ahaa shan goor buu idin yimid ku jira war ka baxa oo diidana termaya rag baan 10 u dhigayna xabad baan kaaga saaray xabad ninkayga labada gaari kala baxay labadood kala baxay 65 gaari baan haystay maalintii ku xigtay aan isku dilayna qoyta hadaan ciise muusanahay raggu nagu kala dhintay aanu lahayn waxaanu ku duuleynay rag lahayn waxaanu ku duuleynay deegaamo kale oo inuu talaabayna ragna lahayn ma ka joojiya naad joognado mana adugeyn taariikhdan ma lagu ma sheeginay dadin faanayn wax ku sheegay waxaan ku leeyahay khadarow xul faarax nuur hadduu hadal gantaal noqon lahaa gumciyo soofaysan gidigiisa maalin baa gubi lahayd adeer horta ilaahay baan afkaaga nagaga dhigin madaafiic waxba nagama isaaq kama reebteen fanka iyo tururugta aan ku leeyahay oday reeraha iyaga oo geedi badnaa ayaa meel degay dabadna nin baa ku yiri oday abtiye ku abti maantun bay guri wacan degn abti adaabaan noo deyneen buu degnay adaabaan noo deyn wariyaha dawladda Cabdiraxmaan iyo Soomaaliland la wada leeyahay warada ka baan deyn adiga wax kula mid baan deynay waxaan idin leeyahay
والحزب يسيبها إنه سجال جوردين وفي حمد الله ده بتشوكتني اللي بتلا ده بتشوكتني لا أوجع أو إساقسي إيدين إيجي وما أنت دون سن دولة دي إن هدي لها كده يضطر كهور كنتان waxa ku jiray waxa marar badan lagu celiyay marar badan wax lagu celiyay oo hadalkan xalina u dambeeyay ku jiray garoonka Hargeysa waxaan ka biinayna magac la cigaal yaan ka masaxayna waxa dilaa iminka ka masaxa iminka gabalkii ugu dhicin warkayga markaa maqashaan ka masaxa magaca doonaysan la baxa oo bixiya kana aanu bixinayna kana kasayada international dunida isku haysato ayaan u bixinayna kana cigaal bixinayna yaa jooji weedaan kana cigaal baan bixin dekadana Soomaaliya aanu bixin doono nin walba ka degalku fadhiya wuxuu u gooyaa buu leeyahay hadii ay darrada iyo kibirka joogtada la joodin waayo warmaantana ma bixiyo afka naga taagan idinka teenaas dhowrtan idinka teenaas dhowrtan daas dhowri weydaan almidan waasi hadir joojiya hadaa joojin weydaan day waxa ka yeeshaan balleed waxa ka yeeshaan idinka iskale waxa عبد الرحمن دولديسا iyo Soomaaliland waa la wada leeyahay waa run uu ogolaada in la wada lahaado hadii kaleeto hadii nabadu waa rays degaye dacar la moodayo oo aan mashxarada la deyn lala dabraynayo annaguna dabkii waasidna aan dowrta lahayn in isku qabsan markii isku dil joojiya afxumada dawladii waa haysataan madax baa ka tihiin haddii doonaysan maanta Cabdi Raxmaan ay ka ridaan deewada war gooniya waa arrin kale oo ridaan maanta Cabdi Raxmaan ama meel kale socotana waxaan ogeyn ogtihiin idinkeedin jirta laakiin wax la wada u daayay waa xumadii hore la ku dul qaadanay daayay war 7 sano baalka muuse caayisay ina moogaa wax la yiraahdo leedahay on maalin qolo la kala hadlin one day la kala hadlin wallahi madaxweynaha qaranka daayay maanta halka fadhiyo oday yahay oo madaxweyne soo maray yahay haddaad madaxweynenimadii ku xishoon ku deyn weydeen oo dhaleeyadii ku deyn weydeen oo maanta oday reer Soomaaliland madaxweyne soo noqday ku deyn weydaan oo oday anaga halkaas fadhiya cidna lama hadli karto juuq looma oran karo ninna ku yeesku diin anigu ragii riday baan kamid ahaa muuse maamulkan ka riday halkaas u fadhiisanaya nabadgeliye afxumadala daba socotaan joojiye ina moogay noqotay ina moogaan waxaan ninka intuu TV-ga soo fadhiistay reerkayga ku yiri intaasoo sanad baa ma yiraahayeen oo madaxweynaha ahaydeen cashuur qaadaysan cashuur waa bixinaysan iwan jabiyay baana waxba tirmiis cashuurna soo qaadimaysid cidna ka celinmaysid ha ku dirin dadka ninka iyo warkiisa intaasan kaga baxaya وياسين جامع علي تلفزيون كعالمي قاعد يبولش تيفي مقالة بربراء